ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo weheliye wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa boqolaal shacab ah maanta kula ciiday beerta nabadda ee magaalada Muqdisho si uu la qaybsado farxadda munaasabadda Ciidul Fidriga. dadka ku sugnaa beerta nabadda ayaa wajahooda laga dheehan karay farxad ku aadan inay arkaan ra'iisul wasaaraha dalka oo kula ciidayo goob qura ay u badan yihiin shacabka Soomaaliyeed isagoo mid ugu sheegayay inay haystaan fursad la xiriirta inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa kula hadlay beerta nabadda boqolaalkii shacabka ay ku sugnaa kuwa u badnaa dhalinyaro waxauna ku buuriyay inay ka shaqeeyaan sidii dib loogu soo celin lahaa karaamada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed oo ay saldhig u tahay dhismaha dawladnimo awood leh taana ay ku imaan karto dawladda iyo shacabka oo iskaashada. haddii dhalinyaradii idinka da'diina ahayd ay dalkan xorriyadiisa keeneen idinku ma awoodin inaad dalka dhistaan diyaar ma u tihiin dalka inaad dhistaan waa inaadan mar dambe aqbalinina inaad dalkiinna markhaati ka tihiin waa inaadan aqbalinina dalka inaad marti ka tihiin waa inaan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo wasiirre iyo baarlamaan aanay idin dhihin annagaa dalka idinka leh. haddaad aragtaan xaqdarro ha aqbalinina. miyaad aqbalaysaan xaqdarro? haddaad aragtaan musuqmaasuq ha aqbalinina. miyaad aqbalaysaan musuqmaasuq? haddaad aragtaan dawlad xumo miyaad aqbalaysaan? waa inaad u soo istaagtiin waajibkiinna waa inaad u soo istaagtiin xuquuqdiinna waa inaad ogaataan dadka waaweyn oo aan anigu ka mid ahay haddii aanay dalkan hagaajin cidda ay ka hadlaynayaan waa idinka. cidda dalka laga hadlaynayo waa idinka. annagu waxaan nahay jiilkii idinka horreeyey oo dalkan ka baxay. nasiib darro waxay ahayd inaan idinku wareejinno Soomaaliya aan qarax lahayn inaan idinku wareejinno Soomaaliya laamiyadeeda iyo nalalkeedu ay wanaagsan yihiin. Soomaaliya ardaygii jaamacad ka soo baxa uu shaqo helo. Soomaaliya dadku ay siman yihiin. Soomaaliya cadaalad leh. maadaama dadkii idinka waaweynaay ay keeni waayeen Soomaaliyada sidaas ah waa inaad idinku u istaagtaan aad nala dhistaan Soomaaliyada sidaas. dawladnimada idinku waay idinkaan idinku tashanaynaa. waa in haddii aad aragtaan meel ay shaki ka jiro oo amni xumo ay ka jirto aad u soo sheegtaan ciidanka. waa inaad haddii aad aragtaan meel laalaab iyo musuqmaasuq uu ka jiro aadna soo ogeysiisaan. waa inaad is-abaabushaan waddaniyadda iyo xuquuqda dalkiina. ra'iisul wasaare Khayre oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in dalkeenu yahay dal alla ku manaystay kheyraad si looga faa'iidaystana dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay inaysan aqbalin wax kasta oo dalkeena dib u dhac u keeni kara. dalkani wuxuu leeyahay bad iyo bari Ilaahay kheyraad ku manaystay. wuxuu leeyahay dhul weyn oo Soomaalida ka badan. wuxuu Ilaahay naga dhigay dad isku afa, isku dhaqana, isku midaba, isku diina. ilaahay nimcaduu na siiyey inaan gacanta ku haysanno soo maaha soo inaan ilaahay ku shukrinno maaha. sababta dawladnimo xumadana keentay waa inaadan idinku dawladnimada ka qayb qaadanina. maanta waa inaad soo istaagtaan. mar dambe waa inaadan aqbalinina in dalkiina dhibaato loo keeno. mar dambe waa inaadan aqbalinina in dariiqii dalkani uu ku socon lahaa laga leexiyo. cid ha ka aqbalinina aniguba aan kuwa ka ahaade. ballanteennu waa maxay? ballanteennu waa inaan Soomaaliya ka duwan Soomaaliyadan aan dhisno. ma aaminsantihiin inaan hayno dariiqii saxda ahaa? ma u jeeddaan dawladnimadii iftiinkeedii? ma u jeeddaan dalku inuu soo laaban rabo? ma u istaagaysaan inaad nagala shaqaysaan? waxaa idiin ballan qaadayaa inaan u istaagnaan doonno aniga iyo golaha wasiirrada iyo madaxweynaha iyo cid walba oo xukuumaddayda ka mid ah qarannimada ummadda Soomaaliyeed. abuurista kalsoonida shacabka iyo dawladda ayay qayb ka tahay in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo maanta shacabka Soomaaliyeed kula ciido goob maanta oo kale dadka reer Muqdisho ay isugu yimaadaan isla markaana u dhageysan lahaa talooyinka wanaagsan ee ku jira dadka Soomaalida aan awoodin inay ugu yimaadaan xafiiskiisa. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.